waxaan mahad ballaaran u celinayaa maamulka reer Gardafuul gobolka Gardafuul maamulkiisa waxaan kaloo mahad u celinayaa shacabka ilaa saaka soo baxay oo maxay tahay qoraxda taagnaa oo sida xiisaha leh noo soo dhaweeyay aad iyo aad baad u mahadsantiin sida gudoomiyuhu sheegay waqtiga inagu yar waynu soo marmari doonaa meeshii aynu maxay tahay ka gaari karo waxaanu wadnaa maanta waxa weeye kow waxa inaanu jabinno isbaarad bahashii la oran jiray halku dhagi la oran jiray gaari waa maanta laga bilaabo gaari waa ma noqonayso Gardafuul waxaanu ku talagalay waxaanu u furay bad hawadii oo aad aragtaan dayuuradu maanta weydiin taagan tahay waxa oo garoonkii baanu furay waxaanu wadadii baa noogu xigta haddii la yidhi oo wadadii weyneyd waa socotaa insha Allahna waxaan rajaynaynaa marka ku xigta aynu isu nimaadno inaan iyada soo mari doono baddu yana waa sidaas leeg waxaanu idin la qaybsanaynay dhibaatooyinkii alxamdulillah rabbil caalamiin oo raxmadu inoo keentay waa loo baahan yahay raxmadda yalkada waa ilaahay qadartiisa oo loo dul qaadanaya waxa ay keento waa ka soo kabanaynaa insha Allah marka socdaalkayga weyn wuxuu ahaa inaanu idin la qaybsano oo u kuur gallo waxyeelooyinkii iyo wixii laga qaban karo waxaan kale oo wadnaa aanu ka shaqaynay inkastoo aan jeclaa wasiirkii ku shaqada lahaa inuu halkan ka sheego waxaanu la shiray dawladda iyo hay'adaha iyo ciddii ku shaqo leh ciddii aad xagga u soo eegayseen waxaanu ku talagalay in halkan wax la soo gaarsiiyo oo wax laga qabto waxaanu helay 610 metrik tan oo cunto ah oo la hayo ilaa hadda 98 boqolkiiba gacanta lagu hayaa waxa la qaybiyay 480 oo boqolay noqonaysa maxay tahay 480 oo boqol noqonaysa 79 boqolayda goobaha lagu qaybiyay la gaarsiiyay waxa kamid ah Boosaaso Bayla Dangorayo Eyl Ceelaayo isku shuban Baargaal hurdiya inta waa la gaarsiiyay waxa goobaha hadda lagu sii wado oo runtii maxay tahay xoogaa barigii iyo badda iyo halkii la mari lahaa markii hore aanu isla eegaynay lagu sii wado calooladana kamid ah laas qoray oo badda hadda loo marinayo badda ay ka iman doonto waxaan ku talagalay inaan dayuurada keeno laakiin dayuuradihii wixii aanu soo qaadin karinay annagaaba sidna wixii caafimaad ahaa iyo wixii inaynu jabino baariyarka ah lama gaadho waxaana maxay tahay idinku mahad celinayaa sida aad noo soo dhaweyseen qiimaha iyo qaayaha leh waxaana ku dhawaaqaynaa sida wasiirku sheegay garoonkii maanta inuu official inoogu furan yahay iska jiwalka dayuuradahana waa kaas maxay tahay inoo sheegay in waa ballan qaadana inay saa ku joogto ku ahaato waxaan rajaynaynaa inaan maalin dambe la oran gabadh baa ku umul raacday meel oo jidka loo waayay ama laashash inaynu dayuuradaasi weygii 2 goor ay inoo timaado
ceelashii biyaha iyana aynu gacanta ku haynaa iyo meelihii ay la tagtay beebabkii iyo ceelashii ay xumaysay baa gacanta lagu hayaa adigu guddida qaabilsan baa haddii aan yidhi markaynu fadhiisanno si tafaafutiran idinku sheegi doonta intani hordhac bay ahayd waxaan u istaagay halkan kelmadda ah inaan garoonkiina inoo furan yahay laga bilaabo maanta reer Gardafuul ama Calooli inaanay maxay tahay ku dhibtoon doonin dariiqiina inuu nagu daba jiro oo runtii dawlad ahaan annaga oo ka wakiila madaxweynaha aanu ballan qaadayno inaanan fadhiisan ilaa dariiqaasi uu shaqeeyo inoo furno haddana gacanta lagu hayaa waad la socotaan wasaarado badan baa meeshan maraya waxaanu maanta u nimi in wasaarad waliba wasiir waliba wasaaraddiisii uu halka kan tii aan furayna laga furo tii furanna uu kormeero oo wixii baahi awoodaha la qaban karo maanta aynu qabanno maanta cid naga maqna macataliyihii ciidanka maraya meesha booliiska waxaa maraya wasiirkii hawlaha guud baa maraya oo wadooyinka ku shaqo lahaa biyihii wasaaraddii macdanta iyo biyaha iyo haddii aan koonayay tamarta iyo khayraadka aad haysaan oo dhan haddaad maataqaan badroolo iyo haysaan iyo macaadin waad u sheegtay degaankii baa maraya tacliintii oo secondary waa markii ugu horreysay miyaa secondary halka kan magaalada tan waanu secondary idin wadno hadda dhagax dhigayno haddii aan la yidhi xoolihii iyo xanaanadii xoolaha maraysa kalluunkii baa maraya caafimaadkii baa maraya dawladii maanta idinkama maqna marka horaan u ballan qaaday inaan raahno meesha gaari waa lama odhan doono weliba anigu inaan xil iska saaro